بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناغسان dhageystayaal meel walbood joogtaan iyo wasi walbood noo maqlaysaanba ku soo dhawaada barnaamijka kulmis oo aynu uga hadalno arrimaha dadka naafada barnaamijka kulmis waa barnaamij toddobaadle ah waxaynu had iyo jeer ku faaqidnaa caqabadaha haysta dadka naafada horumarada ay gaareen iyo nolosha dadka naafada guud ahaan alaaba barnaamijka waxa idin soo saara isla markaana halkan idinkaga soo jeediya anigoo Cabdiraxmaan Jeylaani ah السلام عليكم. سود هذا ما شاء الله. قلت مدرسة وحاطها وين واحد عبد الرحمن اللي جوز نسكول في قلم جبيه وهذا دكتور سردي. السلام عليكم عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله. يا رح هذا خير. في عنتها هاي. الحمد لله. هذا كور. ونبت. هي. ورمضان كور مصومكي. ما شاء الله رمضان. صومنتها. واجب واي. دوما كلك فتمي. سو نصيب حنويه شيء qayb ka ahaado ardaydii ugu horeysay ee lagu bilaabo dugsiga albasiirna waa iskuulkayga hore waa iskuulkayga hadda waan iskuulkayga bari insha Allah ma sha Allah qof waliba anigu horta intaan albasiir iman waan barin jiray dugsiga quraan ayaan dhigan jiray sax fahamkayga iyo waxqabadkayga dhanka marka loo eego waxbarashada diinta aad iyo wanaagsaneed sida ay tahay dadka ما ينقبل كلسوني بدن أو أنا محسوس على كلام. صح. قفل بور كلية هاي واحد مشي ضد واحد ما عرفت سيدا واحد برا نساء سيدا واحد قبا نساء. صح. مركا أنا كنت أدري من أولئك إلى هاي. أي عندنا عياري دور كي جنورش. إذا بدل كهذا أدري ما يعني واحد هاي. إن أنا قفر أحسن قن أحسن نلشيسا. جعلنا إنه جاره هرمر فرق بدن أدي والله. هيا عبد الرحمن قول بنكون رجينا إن شاء الله وري. إن شاء الله أشكر رجينا أنا. أي صونات كذا ده قول استيم كل صلاة. إن شاء الله. إن شاء الله كل صلاة. ورين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال iyo dhageystayaal magacaygu waa Cabdiraxmaan Jeylaani Maye oo kamid ah dadka aragga naafada ka ah ee dhalinyarada ah ee ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaan wax ka bartay oo heerkayga waxbarasho ee dugsiga hoose dhexe aan ku qaatay dugsiga Albasiir ee magaalada Muqdisho si kooban markaan uga warramo 4 sano kadib markii aan kulmeynay saaxiibada Muqtaar iyo Cabdicaziis wax badan baa isbedelay runtii ilaahay mahadi 4 sano waxa suuragal ku noqotay inaan gaaro guulo waaweyn waxa kamid ah in aan dugsigii sare dhameeyay oo heerkii waxbarasho ee dugsiga sare aan ka qalin jabiyay waxa kamid ah sidoo kale inaan bartay cilmiga warbaahinta ama saxaafadda oo aan ka diyaariyay diblomo hal sano ah kadibna ay suuragal ii noqotay
in aan ka mid noqdo wariyaasha Soomaaliyeed ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waana runtii higsigeygii markii aan yaraa oo 6 sano ama waxaan ku raadaan iraahdo 10 years ago 10 sano ka hor aad aan ugu haminayay waan jeclaa warbaahinta iyo dhageysigeedii iyo inuu aad ugu taxnaa oo runtii xasuusteeduna aan markaan dib u celino xusuustana aad xasuusataan inaad markii aad nagu soo booqanaysay dugsiga aan idinkaga sheekeeyay inaan aad ugu haminayo inaan saxaafadda ka mid noqdo marka hadda waxaan joognaa iyadoo hamigaas qaybihii ugu muhiimsanaa ay rumoobeen oo maxaan ku raahdaa wax uun la taaban karo aan ka qabtay haddana aan rajaynayo insha Allah meelo kale oo maxaan ku raahdaa isla warbaahinta ka mid ah oo aad u sii waaweyn oo saameyn leh inaan ku sii talaabsado marka hore ugu horeysa Ilaah baa mahad leh oo waa dareemi kartaa marka la sameynayo hawl ama aad rabto inaad wax ka bedesho noloshaada iyo mustaqbalkaaga waxaad u baahan tahay inaad gasho dadaal aad u fara badan ama ha lagugu garabsiiyo garab ka hel saaxiibadaada asxaabtaada macallimiintaada iyo dadka maxaan ku raahdaa aad la nooshahay sidoo kalena waxaad u baahan tahay in adiga aad yeelato niyad iyo hiigsi fog iyo vision iyo mission inaad yeelato oo aragtidaadu ay cadaato oo maxaan ku raahdaa waxa aad haminayso inaad u bedesho ficil just theoretically inaysan ka ahayn waxaan inaad maxaan ku raahdaa aad kobaha u siibato marka caqabado way jireen maxaan ku raahdaa marka hore macad ayaan ka dhigtay cilmiga saxaafadda oo maxaan ku raahdaa caqabado waan la kulmayay mar walba waa dareemi kartaa waxaan wax ku baranayay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya oo aan ognahay in xaaladaha qaarkood marka qaar dhibaatooyin iska jiraan oo amniga iyo nolosha iyo la xiriidha sidoo kalena marka aad sii baranayso ama aad rabto inaad ka sii noqoto saxaafadda oo aan ognahay saameynta ay ku leedahay bulshada aad ay ku sii dhib badan tahay marka aad adana aragga naafa ka sii tahay waa qayb kale oo iyadana dhabar adeeg u baahan marka dadaal badan aan galay caqabadana way jireen runtii iga hor yimid waxaan mar walba istusayay in meesha aan u socdo aysan ahayn meel sahlan isla markaana aan maalin maalmaha kamid ah miraha caqabadaha aan galayo maxaan ku raadaan marayo aan guran doono marka tii baan ilaa hadda ku socdaa jaamacaddii hadda ugu dambeysay aan ku biiray oo kale maxaan ku raahdaa markii hore walaac badan ay ka muujinayeen waxbaristeedii iyo sida ay suuragal ugu noqonayso laakiin markii ay iga weydiisteen inaan keeno dokumentiyada aan rabo inaan jaamacadda ku fariisto aan u keenay heerka waxbarasho dugsiga sare shahaadooyinkii ka turjumayay oo ay ka mid ahayd in aan galay imtixaankii guud ee qaranka oo in ka badan 25,000 oo arday ay u fariisatay sanad ka hor markii aan shahaadooyinkii la wadaagay ee arkeen buundada aan keenay oo runtii ka sareysay 70% aad ay ugu baraarugeen way i hambalyeeyeen waliba waxay siiyeen full free scholarship oo waxay igu yiraahdeen waxaad ka mid tahay ardayda jaamacaddan looga tashan doono maxaan ku raahdaa dhan waliba oo waliba muhiimadda gaarka ah u leh oo xitaa waxay yiraahdeen waxaan rabnaa inaad ka mid noqoto gudiyada ardayda ee jaamacadda ka shaqeynaya horumarkeeda هذا هو جامعنا سما بس هاي هوشة بس وربحنت هذا بلو إن شاء الله بسم الله وفي هير سرايس لما كان وجامعنا يوري مختار أحمد نور وقيب كبهذا وربعين مقدشة يصير كلا عبد العزيز بلو أيه واحد يسوق جارين دكسيجا أرديدا أرجلا وحلاقو براء البصير مجال مقدشة وفي أيه واحد سير سرا دكسيجا البصير وصل دويه مامل كي أرديدا يجوا سوى نحسنوا كلا ورقاتي waxaana inta wafdiga uu ku sugnaa dugsiga Albasiir ay su'aalo weydiiyeen qaar ka mid ah ardayda dugsiga dhigata iyagoo kaga warbixiyay dareenkooda iyo waxyaabaha ay ku haminayaan waxyaabaha sida aadka u soo jiitay wafdiga waxa qayb ka ah in ardaydu ay yihiin kuwa hamigooda uu wanaagsan yahay isla markaana haminaya in ay gaaraan horumar aad u fara badan sida qaarkood in ay jecel yihiin in ay dalka wax badan ku soo kordhiyaan taa oo ka dhigan in horumarada ay gaarayaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba ay yihiin kuwa iminka la taaban karo waxaa jirta in sidoo kale wafdiga ay deeq afur ah ka sideen walaalo Soomaaliyeed oo ay u soo wakiisheen waxaana deeqdaasi lagu wareejiyay maamulka dugsiga Albasiir oo si wanaagsan uga gudoomay waxaana ardayda iyo maamulka iyo sidoo kale howlwadeennada Albasiir ay si guud uga mahadceliyeen deeqda ay soo gaarsiiyeen walaalaha Soomaaliyeed ee kala jooga Muqdisho iyo dalka Mareykanka si kastaba ahaatee wafdigan ka socda CCTV ayaa wafdigii ugu horeeyay ee ka soo gaara dhanka Albasiir waxaana xusid mudan in CCTV uu qayb ka yahay telefishinada sida aadka u soo bandhiga muuqaalada ka turjuma arrimaha bulshada iyo xuquuqda aadanaha
cabdiraxmaan jeylaani CCTV muqdisho. ما شاء الله ما شاء الله waxaan siinana boqolkiiba 1 baan siinana anigu waxaan inta badan aan qabtaa barnaamij toddobaadle ah oo la yiraahdo kulmis oo arrimaha dadka naafada looga hadlo. barnaamijkan inta badan waxaan ku tabiyaa warbixinada la xiriira xaaladaha nololeed ee dadka naafada ah, horumarada ay dadka naafada ah gaareen, caqabadaha dadka naafada haysta. sidaan ognahay Soomaaliya aad ay u liidataa nolosha iyo xaaladaha ay ku nool yihiin dadka naafada ah. waa dad aan maxaan ku raahdaa matalaad lahayn oo siyaasadna aan matalaad ku lahayn, arrimaha bulshadana aan access fiican lahayn oo ay maxaan ku raahdaa ma jiraan dad badan oo activistayaal ah oo si weyn ugu ololeeya dadkan. waa inta ugu ololeysa arrimahooda inta ugu ololeysana waa in yar oo kooban oo far ku tiris ah. marka anigu maadaama aan iyaga ka soo dhaxbaxay iyagana aan ka mid ahay, waxaan go'aansaday in barnaamijyadeeda ugu badan iyo wararkayga ugu badanba aan ku saleeyo arrimaha dadka naafada. sidoo kale waan galaa wararka iyo barnaamijyada la xiriira arrimaha siyaasadda, waxaan qof update ah oo inta badan xaaladda la socda hadba siyaasadda iyo arrimaha bulshada iyo meesha ay wax marayaan aad ula socda. marka dhinac walba ayaan mararka qaar maxaan ku raahdaa baasha ka galaa, laakiin inta badan waxaan barnaamijyada arrimaha naafada looga hadlo ayaan u ololeeyaa oon diyaariyaa dadkana jeclahay inaan maqashiiyo dhagahooda. marka adoo isbarbar dhigaya xaaladii sanado ka hor iyo hadda maslada xoogaa wacyigu waa isbedelay. aad iyo aad runtii wacyigu waa isbedelay. mararka qaar waxaa iska dareemi kartaa bulshadeenu waa bulsho maxaan ku raahdaa wacyigelinta aad ugu baahan. inkastoo hadda horumar badan aan sameynay oo dadkeenu ay social media aad moodo in maxaan ku raahdaa la soo wada galay, haddana waxa weeyaan dad wali way iska jiraan oo xaaladuhu ay ku dambeeyaan oo wax badan dadka aragga naafada ka ah aan ka fahamsanayn. laakiin wax badan wacyigelin badan baa la qaatay, isbedel badan baa jira. waxa weeyaan 4 sano ka hor xaalku sidoo ahaa hadduu maxaan ku raahdaa sidan isu bedelay 4 sano kadib waxa la filan karaa xaaladan ka sareysa. maxaan ku raahdaa rajaduna insha Allah intaan way ka sii badnaan doontaa insha Allah. marka hamigaada inaad gaartay aniga farxad bay tahay. saxaafadda in anaka nagu soo biirtay oo xoogaa meesha nagu soo ciriirisid waa inoo farxad. aniga muxtaar marka baddaas waa ku dabaalanayne ka soo dhawo dadkaagna waxaan rajeynayaa inuu gaaro dal iyo dibad, dadkii oo arag lah, dadkii naafada iyo dadka caadiga intoodaba inay ogaadaan dhibkaada la kulantay. waan siinayaa. waxaa muhiim waxaa waaye dream come true. macnaha qofku wuxuu ku hamiyo inuu heli karo. cabdiraxmaan wuu hamiyey inuu saxaafad ku soo biiri karo, wuu noo sheegay, wuuna ka dhabeeyey. marka disability is not inability. hala la socdo. Watch out for Abdurrahman. He's the next big name in journalism. I'm so glad also me to be a part of the journalist. Yes. Yes. Thank you. Welcome to the club. So it's a pleasure for me also. Yes. It's nice to have you on board. Abdurrahman To reach my objectives. Yes. One of my objectives. waxaan ninka musharax miyaad halo laga yaabo qorshayaasha soo socda 4 sano soo socda 4 sano waxba isbedel ma ogta beenta ma wallahi marka 4 sano soo socota inaad ku soo baraarugtiin laga yaabo waxa ka filan